madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday farmaajo oo ka baxsanaya aqalka madaxtooyada ayaa lagu dhaawacay meel u dhow afisiyoni ayadoona gacanta ay ku dhigeen ciidamada difaaca dawladnimada adkeenta dimuqraadiyadda Fahad Yaasiin saacadihii hore ee dagaalka ayuu isdhiibay wuxuuna ku xiran yahay xaruntii uu ka talin jiray ee Habar Khadiijo kulana jiis oo loo yaqaan jiis Mariixaan iyo Saciid Kambaala oo hogaaminayay maleeshiyaadkii difaacayay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajana waxay ku dhinteen dagaalka waxaana labada gobol ee shabeelooyinka ka soo galay ciidamadii ugu badnaa ee difaaca qaranka kulanti waxaan oo wanaagsan aqyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxa idin leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeyo siina sheer gareeyo waxa Rabbi subxaanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa qof walba oo muuqaalka leegta ku qabtaa sheer gareeyana in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala awlaadda uu barakay انت اولادون كانا الهي اولاد باري هاسي انت غوردون كانا غور وناغسن مستقبل وناغسن اي بوينا هاسيو qof walba muuqaalka sheerta ku qabtaa waxa Rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeena dambigood iyo dambiga waalidkooda ee baynu dhaafaa Rabbi subhanahu wa ta'ala uu ku cazuma jannatul firdaws ala xaasidka waxa leenahay wa min sharri xaasidin ida xasad al xaasid la yaflah Rabbi subhanahu wa ta'ala hogaamiyada daacadaha siiyo Soomaaliya tani waa warbixin aan ka diyaarinay xog aruurin aan sameynay taas oo aan la yeelanay khubarada xagga dagaalka iyo waliba ammaanka kuwaas oo ka madax bannaan siyaasadaha dalka xilligan isku haya madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday diidanna dalka in doorasho ay ka dhacdo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo saaxiibkiis Rumaad Fahad Yaasiin ayaa wada guluf iyo abaabulkii dagaalkii ugu dambeeyay waxayna doonayaan in xubno ka tirsan midowga musharaxiinta oo fadhigooda uu yahay inta u dhaxaysa isgoodka kiiloomitir 4 ee garoonka diyaaradaha ee aadan cadde international airport ee Muqdisho inay qaarijiyaan ana dhowr mar isku day dil ka badbaaday xubno ka mid ah midowga musharaxiinta halka kuwa kalena hadda la doonayo in si toos ah loo qaarijiyo dhanka musharaxiinta ay shalay ku dhawaaqeen in dibadbax nabadeed ay dhigayaan isla markaana ayaga ay difaacanayaan oo ay sugayaan ammaanka dadka taageersan ee dibadbaxaya laakiin Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayaa hadda qorsheynaya in weerar ay ku qaadaan xubnahaasi midowga musharaxiinta kamid ah waxaana xubnaha la sheegay in la doonayo in la qaarijiyo inay kamid yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Khayre Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo xubno kale oo muhiim ah oo daladaasi ku jira waxaa magaalada Muqdisho soo galay ciidankii ugu badnaa ee ka kala yimid labada gobol ee shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe kuwaas oo la baxay ciidamada difaaca dawladnimada iyo adkeenta dimuqraadiyadda waxaana la tilmaamay inay soo galeen meelo kala duwan oo ka tirsan Muqdisho waxaana dhaqdhaqaaqooda laga dareemayaa inta badan degmooyinka gobolka Banaadir taas oo xilligan caadi ay ka naqatay hubka lagu dhaxwato khubarada ammaanka hadaba waxay sheegayaan in Farmaajo iyo Fahad Yaasiin gulufka dagaaleed ay qorsheynayaan ay ku fashilmi doonaan saacadaha ugu horeeya ee dagaalka xogta iyo nashqada la sawiray waxay muujinaysaa Farmaajo oo ka soo baxay aqalka madaxtooyada markay bilaabatay xabadda saacadana socotay isla markaana ay weheliyaan maleeshiyaad isku beel ay yihiin inay u soo ruqaansadeen dhanka xirada xanan leh si halkaasi ay maangeliye ay ugu helaan xubnaha beesha caalamka ee degan xiradaas waxaana qorshahoodu uu ahaa in ay ka baxaan iskool buluusiya wadada ka baxday gasha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde waxaana gudaha iskool buluusiya loo dhigay dhowr kamiin oo qorshaysnaa taas oo keentay inay ka soo wacdaan isla markaana ay soo maraan wadada afisiyoni ka soo baxda ee gasha garoonka diyaaradaha halkaas oo ugu dambeyntii Farmaajo iyo koloyo gaadiid oo la socday ay la kulmeen dagaal xoogan oo qaatay saacad waxaana dabadeed gacanta lagu dhigay Farmaajo oo dhaawac ka ah lugta waxaana muuqaalkiisa si weyn u qabsaday baraha bulshada xilligii la qabanayay sheekada la yaab kale waxay tahay oo nashqadan ay muujinayso in saacadihii hore ee dagaalkaba uu isdhiibay saaxiibkiis Rumaad Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kaas oo hadda ku xiran xaruntii asiga uu maamulayay Habar Khadiijo ee laga taliyo hay'adda NISA waxa sidoo kale nashqadan ay dajiyeen khubarada madaxa bannaan ee ammaanka iyo dagaalka ay muujinaysaa in dabarjabka Farmaajo ay u keentay daaldaasiga badan iyo inuu isku haleeyay saraakiil uusan ku kala sooneen kuwaas oo dagaalka kaga baxay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin sidoo kale dhinac ka naqday duqay dhaqan
iyo siyaasiyiin laaluushqaatiyaal ah oo u gurbaandumayay kuwaas oo markii xabadda bilaabatay ka soo jeestay dhinaca kale waxaana sidoo kale nashqadda iyo dukumentiga la sameeyey ay muujinaysaa oo ay ifinaysaa in dhabarjabka weyn farmaajo uu la kulmay kadib markii la dilay saraakiishii uu isku haleynayay saacadihii hore ee dagaalkana ay ku dhinteen kuwaas oo ay ka mid yihiin kulana jiis oo loo yaqaan jiis mariixaan kibre iyo sidoo kale saciid kambaala iyo xubno kale oo isku heeb ay ahaayeen maxamed cabdulaahi farmaajo nashqadan waa mid cajiib ah la soco goordhow qaybta labaad ee nashqadan iyo weliba ayadoo muuqaal ah oo dokumentary ah oo la sameeyey qaabka nashqadda iyo howlgalka uu u dhacayo ogaawse maanta taariikhda meel ku qor waxaan dhammaanteen aan u qori doonnaa khubaradaasi madaxa bannaan ee xagga ammaanka iyo ciidanka ku takhasustay haddii sida ay wax u nashqadeeyeen ay u dhacaan inay asiibeen oo ay sheegeen runta